danta dalka iyo dadka waxa jira dadka in la laayo sidii nimanka hore loo laayay haddii aan la layn magaalada waa la isku leynaya qabiil baa la isku leynaya qof walba qofkiisa dilay waa yaqaana madaxweynaha dawladda Puntland waxaan ka codsanaynaa sidii ku yar loo laayay in kuwana loo laayo dadkan waa qaangaar dad bay laayeen waxba qabin oo misaajid ku jira oo labeynta magaalada marka in la koolkooliyo ma ahan sidii 18 loo waray in kuwana loo waray baan ka codsanay madaxweynaha ku xigeenka dawladda Puntland odayaasha ismada nabadoonada gobolka mudug danta waxay ku jiraa sidii 18 loo dilay kuwana loo dilo waa laga nasanaya 8 saac la socda dadku dhib ma lahan qof walba meeshu mara misaajid ku cibaadaysanaya waa la tukanaya awal waxa la tukan waayay taraawixdi hadda 9 saac 10 saac inaad maraysan nabadgelyo marka dadka finaalayaasha shabaab wuxuu difaaca waa shabaab marka dadka shabaabka dadka iyay been u sheegin qof dilay ولا الدنيا شرع إسلام كدري من قتل مؤمنا متعمد في ذا جهنم خالد فيها وقد ولى عليهم ولعنهم وعد عليهم عذاب أليم بإلهي القرآن القرآن كبير قف كمالك واحد دلي وقانقر نقول عن عصنينا تدك وقانقر إلا الله يو وحن وباقنا تدك كوها هذا حقوق الإنسان بانو نهاي وحن ويدين إن حاجات دين لبنتو قبل كمدو مركي للينيي سراكيش الدولة مركي للينيي odayaasha markii la leynayay ayagu xuquuq insaan ma lahayn miya insaan ma ahayn miya ma dameeray ahaayeen ma dad baysan ahayn waanu weydiinina ciyaalada yararka iyo dadka dhalinyarada ah oo hay'adaha ajaanibta ah oo ay hadda maaragtay dabada ka riixayaan waxaanu weydiinina xagee jidin ayagu xuquuq ma lahayn miya ninka masaajidka ka soo baxay 7 jirka soo cibaadaystay madaxa markii lagu dhufanayay xagee jidin xuquuqul insaankan la sheegaya oo masaak ku dhashay ma garan karno su'aashaas waxaanu ka rabnaa inay ka jawaabaan waxaan marka baaqayga ku xoojinayaa madaxweynaha dawladda Puntland una sharaxan madaxweynaha dawladda Soomaaliya hadda aynu ognahay federaalka inuu u socdo waxaanu kuugu baaqinaa inaan lagaaga faa'iideysan inta aad ololaha doorashada ku jidho oo dadkaas maaragtay dadka labeenta gobolka laayay aan si sahlan loogala bixinin xabsiyada iyo meelaha ay ku jiraan waxaanu baaqinaa kuugu baaqinaa intaad mashquulsan tahay waanu ognahay inaad shabaab sii daynayni intaad mashquulsan tahay aan hoostaada lagala bixin waxaan kaloon ugu baaqinaa dadka ku hawlan hawlaha noocaasa waxay rabaan dadka ehelka ee gobolka wada degan inay islaayaan inay isku dareeraan inay maaragtay fidna qabaa'il ka shaqeeyaan waanu ognahay dadka ka shaqeynaya dadkaas dhalay oo hadda waxa jira fariisan la waxaanu u sheegnaa dadkaas dhalay ee fariisan la haddii ay maaragtay ka joogi waayaan oo ay isku taxallujiyaan ciyaalkooda inay meesha kala baxaan hadda ayaga isku bedelay ha ogaadeen waxaan ugu baaqinaa dawladdu dadka iyada u dhaxaysa iyadaana nooga lex jecel badan saraakiishii meesha lagu laayay inay dawladdu hawshaas dedejiso xukunkii u harsanaa racfaankana ay maaragtay sidii loogu talagalay processkaas loo dedejiyo waxaan ku codsanaa dadkooda laayay baan nahay waxaan anu ka socdaa xaashi aadan cilmi oo lagu dilay gobolka mudug ninkii dadkii laayayna lagu mariyay maxkamadda darajada koowaad ay mareen haddana bil raxfaan ay qaateen bisha raxfaanka oo daahday waxaan rabnaa dawladda Puntland iyo maxkamaddaba waxaan ka codsanaynaa inay waxay xaq u leeyihiin inoo mariyaan dadkaas oo xaq nooga gudaan noo horkeenan maxkamaddana la horkeeno waxaan ka socdaa xildhibaan Mukhtaar Axmed Cumar Tiinle arrinkaas inuu soo gabagabay waanu aragnay waxa inoo haray hadda waxa weeye ku xirantaa arrinka oo dhan maxkamadda sare in muddahan anigu dalka jooga dalka maanan joogin korbaan ka imid arrinkaasana u joogay maxkamadda sare waxaanu mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afaraadba ka codsanaynaa inay arrinka inoo soo gabagabayso insha Allah dawladuna ay inoo raacisaa inta dibanayaashii dadkoodii haldoorka ahaa iyo saraakiishii Puntland ee gobolka mudug ka shaqay jiray al-shabaabku ay ku toogteen magaalada Gaalkacyo haddana la qabtay oo dawladdu ay qabatay muddo ka bacdina maxkamaddii gobolka mudug ay xukuntay waxaan ka codsanaynaa maxkamadda sare inay noo dedejiso dhagarqabayaasha haldoorka yagii iyo dadka yagii laayay oo hadda lagu hayo cirka inay maxkamadda sare timaado
oo noo xukunto xukunkoodana nalaku soo wareejiyo annagaa diloonayna. hadda madax duubto gaalkacyo uu ku laayay oo dadkoodii dhintay baanu nahay. waxaanu ka cabanaynaa maxkamaddii darajada koowaad haddii ay xukuntay oo gobolka mudug midda sare in ay xukunka inta noo hadhay noo dadejiso maadaama aanu dhibanayaal nahay fiirsanayno ummaddaas dadka yagii laysay in xaqa naloo waafajiya aanu rabno. intaasaannu isugu nimid dadkii hadda dadkaasu ka maqaanaana meeshaa joogta haddana wada taagan oo meeshaa fadhiya. waxaan ka socdaa anugu xildhibaan mukhtaar axmed cumar tille oo lagu dilay magaalada gaalkacyo oo ay dileen nimanka ku xirxiran meeshaan hadda magaca loo baxshay cirka iyo maaqa wax la yidhaahdo oo hadda ku xiran oo ay maxkamadda darajada koowaad xukunkoodu riday. waxaanu codsanaynaa maadaama annagu cid aan kiis lahayn ceyrsan mayno waa cid ay ku cadyahay kiisku waa cid qiratay. waxaannu doonaynaa inay maxkamadda darajada sare ay noo soo dedejiso. wakhtigii waa dhammaaday, wax badan baa nooga lumay. waxaannu sugaynay inay cadaalad helaan, inay noo dhammaystirto nag wakhtigii uu dib dhacay sida ay dawladdu u soo qabatay dembiilayaalka inta dhiman inay u tafaftidho ayaannu doonaynaa. in ay arrintaa fuliso maxkamadda sare si degdega garsoorku inuu noo fuliyo maxkamadda sare inay noo fuliso. madaxweynaha dowladda puntland waxaan ka rabnaa in ay rabadaantaas lagu jiro oo dhexdeeda naloo fuliyo garsoorkii oo aysan nimankaas lagu waraaqin. dhibanayaal dadka ay laayeen maa noo muuqda. ummadda dhib kale inay ka sadexdhexda ma rabno. annagu hadda marka meel fiican waddo fiican baan nahay haywey baan soo baxnaya dib yaan loo celiyay ummadda.